السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبض وضيالي الهانتين بملك جوجتان halkan waa shabakada caalamiga ah ee Burco Online Studio-da koobaad ee magaalada Burco. Daawadayaal ku soo dhawaada khudbadii uu maanta gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay fagaraha khayriidda magaalada Burco. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بقول هذا مجا وفتية أو ككوبر هجاك حسبية كودي فرنتا ولي برلمانك وكيلها يقرأ فيها ويك يرى وحن آد سكر يا بابا ذيك ما أطلقيا سياد نسود ويسين يعني هر الله waxaanu dareemaynaa in saacado badan dad badan danahoodii ay lumiyeen oo arday leh oo dhalinyaro leh oo hooyo leh oo hablo leh oo oday leh oo dhalinyaro leh oo ciidamo leh oo madaxdii u sarreysay leh aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa jazaakumullahu khayr. walaalayaal soo dhawaynta maanta aad muujiseen waxay sharaxaysaa oo micnaynaysaa qiimaha ay leedahay iskaashiga is-aaminaadda wadatashiga mabda'a iyo xisbinimadu. walaalayaal maanta soo dhowayntiinaasi waxay farriin u tahay oo ay kalgacantooyo tusaysaa inaanu mid nahay kulmiyaha jooga laasqoray iyo ka jooga sayrac iyo inta u dhaxaysa inay xisbinimada iyo mabda' laysku aaminaa tahay wax ka weyn qoys iyo reer iyo deegaan yaroo kooban ee ay dalka iyo qaranka oo dhan tahay. walaalayaal waxaad tusteen inay tahay xisbinimadu koritaanka bulshadu ay u korayso inay hore u marto oo ay wax isku darsato oo talada isku aaminto oo xoolaha isku aaminto oo nafta isku aaminto oo iyagoo mid ah cadowgoodana iska dhiciyaan dalkoodana horumariyaan. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin dareenka aa muujiseen. intaa haddaan ku dhaafo soo dhowaynta waxaan doonayaa inaan idiin sheego ujeeddada socodka iyagu ahaa. maanta socodka iyaga aan u saabo baxnay haddaanu xisbiga kulmiyanahay wuxuu ahaa 3 qodob. qodobka koowaad walaalayaal idinkoo aad iyo aad u mahadsan Burco gobolka Togdheer oo aanu ognahay in xuduudtii kulmiye ku aasan tahay oo aanu idiin ognahay 8 sannadood wixii idin soo gaaray waxaad qabateen halgankiinni waa idinkii guushii dhaliyey ee aynu loo wareegnay xilkii qaranka ugu weynaa iyo maamulkii qaranka. sidii guushaa u keenteen hawshii aad noo dirteen ila waana igmateen markii aadna doorateen waxaad tiraa noo shaqeeya. sanadkaa waxaanu ku muqnayn hawshii aad noo dirteen sidii loo qaabayn lahaa ee loo qorshayn lahaa iyo inta ugu faraha badan qaban karaynu qabanno. socdaalkayga waxaa koow ka ah inaannu dadweyne u soo noqonana dirtay oo aannu weydiinno xaggee baannu maraynaa waddadii aad noo dirteen ma haynaa hawshii sidii ma u bilowray ilaan dhammayn kara maynoo waa ogtihiine intay baaxad la eg tahay. markaa waxaan u soo noqonnay dadweynihiina doortay inaan u soo riboor celinno oo riboorka idiin keenno oo wixii dhaliil iyo tusaale aadna siinaysaan aanu idinka qaadanno. socdaalka iyo koowaad ujeedaskooda waa taa. ka labaad waxa weeye walaalayaal waxaynu doorannay hab laga dimuqraadi oo qeexaya in muddo walba la doorto golo walba muddihiisa 5 sannadood mar in golaasha la doorto. walaalayaal maanta waxaa taagan doorashadii dowladaha hoose. Togdheer haddii aad nagu gargaarteen haddaad nala garateen haddaad nagu gacan qabateen haddaad tulka nagu qaadeen oo kursigii sarena saarteen maantana waxaannu ku soo noqonnay oo haddana idin leenahay idinkoo diiftii hore qaba iyadoo anigu hay qof waliba wixii ka gaaray weli inaanu ka soo kaban iyadoo dad badan oo doonaan maantana ma hawshii kale nagu wadaa tii horan loo yaabanay hawshii baanu idiin wadnaa waayo nolosheennaa ku xidhan. sababtuna waxay tahay waxaynu go'aansanay 5 sanaba inuu mar wax dooranno si loo helo dhiig cusub oo dalka dhaqaajiya hadday tahay madaxnimo hadday tahay dowlad hoose iyo hadday tahay baarlamaanba. markaa idinka oo qaba daalkii iyo xanuunkii iyo dhibaatadii ka soo gaaray tii madaxtooyada maantana waxaynu dhisaynaa tii dowladaha hoose si dalkeenu hore ugu maro
oo inu marba madaxdeenu bedelo marka waxaan codsanayaa inaad wadkaysataan dhinta ay dimuqraadiyaddu leedahay iyo hawsheeda ka soo gaaraysa doorashooyinka sidaa darteed maantana waxaa taagan doorashadii dowladaha hoose markaan ku sii socdo arrintaa xanaftii doorashadii hore su-aasha igu badan ee dhallinyaraday weydaysaa waxa weeye kulmiyo waanagii dooranay miyaan ugu guurayseen idinkunbaa kuraasidii furayna mee xaggee nagaga tagteen walaalayaal waan idinla joognaa meella maanaa tegin sidii idinkoo da'daasa hawsha oo noo bilownay ayuun baanu ku jiraanu ku gabownay hawshana waanu wadoodanaa ta shaqada walaalayaal dalkeenna waa inaynu hellaa shaqa abuur qorshaheedii baa la hayaa waxay ka dhigan tahay taasi waxaa la yidhi nin aad u baylah badan oo baylahdiisu badan tahay ayaa la yidhi inan baa ku dhashay galabtii u gaaraysa xidhi haddaynankii maanta u dhashay markaasuu yidhi waar ninkii la sheegay reerka ku soo biiray kaale wax ku tarnaa oo ama geeyan aroori ama dhaakan kaxee iminka waxaan leedahay kulmiyihii lalahaa u dhashay mee war kaale dee dadka wax ku tara oo hawshaa wax ka qabta waar hawshu intaa way ka ballaaran tahay waana idiin maqannahay oo saasaynu ku wada soconan ka saddexaad waxa weeye oonu taageero u doonaynaa doorashooyinka soo socda laba shardi oo ku xidhnaa ayaanu haddaanu kumiyarahay doonaynaa in laga bedelo golaha baarlamaanku waa baaskareeyey guurtiiduu sii socdaa madaxweynuhu ku sii socdaa arrintaa dadka qaarna waa iskaga soo horjeedaa waa nagu khilaafsan yihi garta aan waddaan waxa weeye hadday doorashadii joogto doorashaa muhiima waxaa la yidhi diiwaangelin hal helo diiwaangelintii waxay qaadanaysaa 2 sano oo dhadhow sanad iyo 8 bilood lacagna uma hayno waxay nagaga xidhan tahay gacan shisheeye gooray imanna mooyi waxaannu ka taagannahay waar berihii deegaanku 10 sano u joogay ninkii doorashada doonaya wuu sugayaa iyagii meeshii way ku raageen oo waxaa loo baahan in loo jidiiday kii la soo dooranayo xaqa iyo aaminaaddu waxay tahay in cid walba wakhtigeedii la doorto sidaa darteed waxaannu wadnaa in doorashada lagu galo oo diiwaangelinta laga qaado meesha waayo dhaqaalo looma hayo sidaa darteedna toos loo galo oo la doorto golo deegaano cusub gobolka labaadeenu wadnaa waxa weeyaanu idinka doonana taageero oo isagana muran ka jiraa golaha deegaamada sharci baa laga soo saaray baarlamaanku u baaskareeyey golaha wakiiladu waxaanu sii socdaa isaguna guurtiisa iyo madaxweynuhu sii socdaa dad badan baa isagana muran ka keenay waxa weeye berigii hore golaha deegaanada waxaanu ku doorannay liis inta liis la qoray ayaa xisbigu soo saaraya 10ka uu doonayo waxaanu u aragnay haddaanu kulmiye nahay oonu waayo arag bulshadanu nahay inaanay taas doorasho ahayn ay tahay xulid anigoo guddoomiyaha kulmiye uma xuli kara dadku waxay doonayaan dadku qofka ay doonayaan waa inay doortaan sidaa darteed waxaanu soo jeedinay golaha deegaanka bulshadu qof ay wax ku aaminaysa iyadoo ha doorato oo liiska ah laga daayo taana teegaanaan ugu rabnaa waayo dadka ummaddaanu aragna intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal khulbadii uu maanta ka jediyey fagaaraha khayryadda magaalada burco mujaahid muuse bixi ahna guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee haatan dabcan waxayd la socodsiinaya anigoo cabdisaaq faarax cabdilaahi intaan mid ka mid a ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo ammaano allah.